boqolaal shacab ah oo ka murugaysan dhibaatadii dadkii ku dhaawacmay weerarkii isqarxinta ahaa ee 14 bishani ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa isugu yimid madal ku taala xaafada Islii ee magaalada Nairobi oo dhig lagu shubayay si dadkaasi loogu caawiyo. qaar kamid ah dadkii madasha lagu ururinayay dhiiga isugu yimid ayaa si qiiro leh kaga hadlay weerarkii isqarxinta ahaa ee galaaftay boqolaal shacab ah iyagoona u duceeyay dadkii ku dhintay weerarkaasi waxayna Ilaahay uga baryeen kuwii ku dhaawacmay inuu Ilaahay caafimaad taam ah siiyo. kullu nafsin daa'iqatul maut cid walba ay dhamanaysaa inta dhimatay Ilaahay u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay caafiyo taasi taxsida aan ka leeyahay tan kale waxaan leeyahay meesha waxa u nimaadnay maanta inaan dhiig bixino shalaytii ilaa darad waxaan ka shaqeynay wasaaradda caafimaadka iyo Amref International sidii dhiig loo bixin lahaa iyo nidaamka sharciyan maadaama dawladda naga aqbashay waxaana Soomaalida xaafadda shalay lamaanta ugu baaqayna inay aad u soo baxaan dhiig ay baxshaan. waxaan halkan tacsiid tiiraanya looga dirayaa ummadda Soomaaliyeed way naga wala baxday anaga dhan waxa macnaha Soomaali maanta qabiil dhahay ma ahan Soomaali midaan nahay aad baa ugu xumaanay hadda maalmihii maana seexanin halkan waxa uu imaanay in ummadda Soomaaliyeed dhiig ugu deeqan anagoo haween Soomaaliyeed ah marka ma sha Allah waxaan leenahay Soomaalida inta xanuunsan Ilaahay u boogdhay intii dhimata Allah u naxariiso qabrigooda nuur Allah u saaro Soomaalina bogooda burcad Ilaahay iskugu mariyo aad iyo aad ayaan waxa uga xunahay Ilaahayna aan uga baryeynaa naxariisiyo jirna inuu ka siiyo dadka dhowrka boqol gaaraya ee ku dhintay magaalada Muqdisho oo lagu dilay oo gacan ka xaq daran dishay iyo dadka badan oo dhaawaca Ilaahay waxaan uga baryeynaa in Allaale inta dhaawacana Ilaahay inuu ma aragtay caafimaad siiyo oo Ilaahay uu ma aragtay cawl ciiliyo waxaan aad iyo aad uga xunahay waxa dhacaya wax kale aan qaban karo male anagu waxaan bixin karaa dhiigayaga iyo dhaqaale wixii aan heli karo marka waxaan rabnaa inaan dadkayga Soomaaliyeed u sheegno meel walba ay joogaan inay dhiiga u yimaadaan meeshan Islii way socon doontaa 2 maalmood dhiigooda inay bixiyaan waxaan rabaa inaan meeshan uga tacsiyeeyo dadkii walaalahay ahaa oo lagu gumaaday Muqdisho oo Soomaaliyeed arintaas oo arin aad iyo aad uga murugoonay arin aad iyo aad u falxun arin la rabo in Soomaaliya lagu magaceeda iyo sumcadeeda wax loogu dhimo shacabkeeda lagu dhameeyo jiritaankanaga wax loogu dhimo inay tahay yaan aad uga tiirayeysnahay waxaan cambaareynayaa cid kasta oo lug ku lahayd arintan dhacday oo maanta Muqdisho ka dhacday tacsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka ha u booqadayo Ilaahay jannada ka waraabiyo wixii dhintay wixii dhaawacmana Allah caafiyo. Cabdishakuur Farax Igalle Universal TV magaalada Nairobi.